Qofka Muslimka ahi wuxuu leeyahay hub weyn, duco iyo tawakkal. Marka ay xaalad adag kugu timaado, la hadal Rabbigaaga. Ducadu waxay ku siisaa nafis iyo kalsooni, waxayna xoojisaa iimaankaaga. Waxaa jira xigmado badan oo sheegaya in caqabadda ugu weyn ay tahay tan adiga kuugu dhow ee aad Rabbigaaga ugu dhowaan karto. Ha isbarbar dhigin qof kale ama dadka kale. Mid ka mid ah sababaha caqabaduhu u adkaan karaan waa marka aad isbarbar dhigto dad kale. Waxaad isleedahay maxay iyagu ugu fudud yihiin nolosha, halka aniga wax walba igu adag yihiin. Laakiin runta ayaa ah qof walba wuxuu leeyahay caqabado u gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad aragto qof muuqaal ahaan u muuqda inuu faraxsan yahay, balse gudaha uu dhibaatooyin badan ku qarsanayo. Wax ka baro guuldarrada. Guuldarradu waa macallin wanaagsan. Haddii aad ku fashilanto dadaalkaaga koobaad, ha ka tanaasulin. Weydiiso naftaada sababta ay u dhici weyday. Maxaad ka baran kartaa? Dadka ugu guusha badan waa kuwa guuldarrooyin badan soo maray balse aan ka harin. Noloshaada waa inaad dib u habaysaa. Mararka qaar caqabadaha ayaa kuu horseedi kara inaad dib u eegto noloshaada oo aad wax ka beddesho qaabkii hore. Waxaa laga yaabaa inaad ogaatid inaad waqti badan ku luminaysay waxyaabo aan muhiim ahayn. Waxaad bilaabi kartaa inaad qorshe cusub samayso, aad dejiso yoolal cadcad oo la gaari karo. Caqabaduhu ma aha waxna barakiciya ee waa waxna xoojiya. Waa imtixaanka nagu hagaya inaan noqono dadka ugu fiican ee aan noqon karno. Marka aad la kulanto dhibaato, xasuuso inaad leedahay awood ka weyn caqabadda. Ha niyad jabin, ha ka cararin, ha isdhiibin. Halkii aad ka eegi lahayd dhibaatada oo keliya, ka eeg fursadda ay kuu sido. Qof walba wuxuu leeyahay taariikh uu ka sheekayn karo. Waa taariikh dhibaato uu ka gudbay oo uu ka guulaystay. Waxaa laga yaabaa inaad maanta la halgamayso, laakiin berrito waxaad noqon kartaa qof dadka dhiirigeliya. Ku dadaal adigu inaad noqoto tusaale dadka kale u roon. Qof la yiraahdo isagu wuu u adkaystay caqabadaha oo dhan, anigana waan awoodaa. Waa lagama maarmaan inaad kalsooni ku qabto naftaada, aad la xiriirto Rabbigaaga, aadna ogaatid in caqabadda maanta kugu timaada aysan weligeed jiri doonin. Awoodda jirka inaan ka harin. Awooddaada waa inaadan marnaba ka harin. Nolosha bini'aadamku waa sida badweyn oo leh hirar waaweyn iyo hirar yaryar, marna deggan marna kacsan. Qof walba oo ku nool dunidan wuxuu marayaa safar dheer, safar leh waqti fudud iyo waqti adag. Qaar badan oo ka mid ah dadka guulaysta ma ahan kuwa mar walba ku jiray xaalad wanaagsan. Waa kuwa marar badan wajahay caqabado, balse waxa ay lahaayeen hal awood oo ka dhigaysa kuwa gaar ah. Ma aysan ka harin dadaalkooda. Sababta aan uga harno mararka qaar dadku waxay ka harayaan yoolalkooda, sababtoo ah waxay u arkaan in safarku yahay mid dheer oo daal badan. Waxaa dhici karta in guuldarrooyin isdaba joogihii niyad jabiyaan, ama ay u muuqato in rajadu aysan macquul ahayn. Waxaa laga yaabaa in ehelkaaga, saaxiibkaaga ama bulshadu ay kugu yiraahdaan war tan iskaga har, waa waqti lumis. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dadka sida fudud uga haray aysan weligood ogaan karin waxa ay heli lahaayeen haddii ay sii wadi lahaayeen. Xasuusnow guushu waa geedi dheer. Guushu ma timaado hal habeen gudahood.
waxay u baahan tahay sanado, daal, samir iyo wax ka barasho khaladaadka. Waxaa jira oraah caan ah oo tidhaahda, guusha ma ahan meesha ugu dambaysa ee aad tagto, ee waa safarka aad u marto. Dad badan oo maanta loo arko astaanta guusha waxay mareen boqolaal fashil. Waxay isku diyaariyeen marar badan, iyagoo mar walba ka baranaya waxa khaldamay ilaa ay ugu dambayn heleen halkii saxda ahayd.